السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي هلكا إيغلا سوعتانا waa channelkayga King Mohan Jaceylo channel. أصحابتي دقالي waxaan rabaa in aan waxyar kala taabto kulanka El Clasico, kulanka ugu wanaagsan dunida, kulanka qof kastaba ay jeceshahay in ay ka hadasho. taasi ayaa igu dhalisay in aan kilibkan yar soo duubo misna aan la wadaago. kulanka El Clasico dhaxaya naadiyada Barcelona iyo Real Madrid ayaa kulanka loogu jecel yahay dunida. laakiin wixii haatan ka dambeeyo taasi ma dhici doonto sababtoo waxa ka maqan shumaci ifinaya kulankaas shumaci ifinaya waxa ka mid ahaa labada shumac ee u kala ciyaari jiray naadiyada Barcelona iyo Real Madrid. inkastoo ciyaaryahan Lionel Messi oo wali ku sugan yahay gagada caanka ee Nou Camp Stadium, haddana geesta kale ayaa mid laga wada qabo in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo sandidan ugu soo naqad doonin naadiga Real Madrid haatan oo ku sugan yahay naadiga Juventus. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa season kan bilowgiisii iskaga tagay naadiga Real Madrid. waa tan kale oo la dhihi karo Real Madrid iyo Barcelona iskuma babacday kala maadaama uu maqan yahay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. taas laajligeed bedelkeeda haatan ciyaaryahan Lionel Messi ayaaba ka maqan kulanka El Clasico. kulanka El Clasico ayaa ahaa kulanka ugu xiisaha badan dunida wax kubadda cagta kulan kasta oo la daawado. laakiin haddii uu maqan yahay Messi iyo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo waxay leeyihiin dadka qaar ma dhameystirna kulankaasi. inkastoo ciyaaryahan Lionel Messi dib loo heli doono kulankan wixii ka dambeeya El Clasico-da kale, laakiin waxa cad amba muuqata sidaad ogtihiinba in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo aana dib dambe loo heli doonin wiilka reer Portugal ayaa haatan ku sugan naadiga Juventus asigoo xalay dhaliyay 2 gool. haddana gool dhalinta dalkaasi Talyaaniga u jira 2 gool oo kaliya waa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. 2 gool oo xalay dhaliyay ayaa ka dhigtay inuu booska labaad soo galo asigoo leh 7 gool, halka gool dhalinta lagu hayo 9 gool. midda kale ciyaaryahanka xulka qaranka dalka Argentina mucjisada gaaban ee Lionel Messi ayaa ka maqnaa doona garoomada 3 isbuuc sida la sheegay. ciyaaryahanka xulka qaranka dalka Argentina Lionel Messi ayaa ciyaaryahan dhaawac ku seegi doona kulanka El Clasico. dhaawacaasi oo ka soo gaaray gacanta kulankii u dhaxeeyay naadiyada Barcelona iyo Sevilla. kulankaasi oo gool la dhaliyay, goolna caawiyay kadibna ciyaarta laga saaray. ciyaaryahanka xulka qaranka dalka Argentina Lionel Messi ayaana ciyaari doonin kulankaasi. geesta kale kulanka ugu adag dunida ee soo hormaada naadiga Barcelona iyo Real Madrid qof kasta way jeceshahay inay ka hadasho, inay ka falaqayso, inay wax alaale xogta ay ku ogtahay ay ka sheegto. anigana taas ayaa ugu kaliftay inta aan ka ogahay amba aan ka xasuusto in aan la wadaago asxaabteyda qaaliga tan aan ka ogaa waxaa ka mid in labada ciyaaryahan oo ka wada maqan naadiyada Barcelona iyo Real Madrid waa Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ee wada ciyaareen oo laga badiyay naadiga Barcelona. markasta markii xilligaasi ay gaartaba taas hadee dhacdo waxaa loo baqaa naadiga Barcelona in dhigta dhiig loo daro, waayo markii ugu dambeysay ee labadoodaba aysan ciyaarin kulanka El Clasico ayaa ahayd 2007 xilligaasina naadiga Real Madrid ayaa ku adkaatay gooli eber. goolkana waxaa dhaliyay ciyaaryahanka xulka qaranka dalka Brazil ee Julio Baptista. markaasi Cristiano Ronaldo ayaa ku sugnaa naadiga Manchester United, laakiin ciyaaryahan Lionel Messi ayaa ciyaari kara kulankaasi, laakiin sababtoo wuxuu uga maqnaa dhaawacaasi ajligeed uu ka maqnaa xilligaasi ciyaaryahan Messi. Ronaldo ma joogin horyaalka Spain ee naadiga Real Madrid. Manchester United oo Trafford ayuu ku sugnaa. taasi kadib wixii ka dambeeyay labadooda ilaa haatan waa muddo laga joogo 12 sano maysan dhicin inay isla maqnaadaan hal mar, laakiin waliba goor kulan hadda ka hor Real Madrid looga badiyay 4 gool eber. ciyaartaasi natiijadeedana xilli hore ay soo go'aamiyeen Luis Suarez iyo ciyaaryahan Neymar ayaa looga badiyay 4 gool eber. xilligaasina Messi wuxuu ku soo galay bedel. way jirtaa kulamo kale oo Ronaldo oo maqnaa naadiga Real Madrid, laakiin labadooda oo hal mar isla wada maqan xilligaasi ayaa ugu dambeysay in la ciyaaro El Clasico. midda kale meesha taala waxay tahay yaa bedeli doona booska Messi. macallin Fafardinho u soo xula doona 3 bedel ayaa miiska u saaran. 3daasina waxay 3 nin ayaa miiska u saaran. 3daasina waxay kaliyihiin ciyaaryahanka reer Brazil ee Maicon oo ilaa haatan aan kulan lugta loo soo dhigin garoonka
iyo ciyaaryahanka xulka qaranka Faransiiska Moussa Dembele iyo ciyaaryahanka hadda lagu soo bilaabay kulanka Inter Milan ee Champions League waa ciyaaryahan Rafinha Alcantara ciyaaryahanka reer Brazil saddexdaas nin ayaa laga yaabaa midkood inuu ciyaaro booska ciyaaryahan Messi oo ka maqan yahay naadiga Barcelona tan kale oo Real Madrid oo maqnaashaha Messi Real Madrid waxay u tahay guul waayo horay markii Messi oo maqan garoonka way ka badiseen naadiga Real Madrid naadiga Barcelona walo goor Messi oo joogan laga badin jiray laakiin markii laga hadlayo in maqan yihiin labada nin waa naadiga Real Madrid ayaa dhan kastaba guusha loo badinayaa mid kale oo naadiga Real Madrid siin karta guusha ayaa ah maqnaashaha daafaca dambe halbowlaha dambe ee xulka qaranka dalka Faransiiska Samuel Umtiti ayaa ka maqan garoonka muddo dhaawacan uga maqnaa doon ilaa 2 bilood inta la sheegay ciyaaryahan Samuel Umtiti ayaa ah go'aaminta kale oo loo go'aaminayo inay naqato naadiga Real Madrid natiijada ciyaarta ay hesho geesta kale waxa la isku hayaa Karim Benzema iyo ciyaaryahanka xulka qaranka dalka Uruguay waa ciyaaryahan Luis Alberto Suarez ayaa ah labada nin ee laga sugay in ciyaarta go'aamiyaan xilli markii hore ay go'aamin jireen Messi ama Ronaldo si dadka ay qabaan laakiin hadda caawa waxa laga sugayaa Karim Benzema iyo ciyaaryahan Luis Alberto Suarez wuxuu ka dhaliyay naadiga Real Madrid 6 gool Karim Benzema naadiga Barcelona wuxuu ka dhaliyay 9 gool 6 goolna wuu ku caawiyay waxay ku tahay taas caqabad weyn in Karim Benzema markastaba oo kor imaado naadiga Barcelona shabaqeeda oo soo taabto dhageystayaal waxaan inta ku dhaafayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waana kulanka iyo caawa natiijada cidda ay raacdo